Ma doonaysaa daawade muuqaal ku saleysan xaqiiqda? Haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalka, subscribe saar muuqaalkana like garay kula soo dhowow wararka xaqiiqda ku saleysan. Ururka Al-Shabaab ayaa markaasi waxa ay la beegsadeen weeraro kala duwan kooxda Liyu Booliis, iyadoo markaasi la soo sheegay in kooxda Liyu Booliis qaarkood ay carareen, qaar kalena la soo qabtay, weliba la sheegay inay dagaalka aad ugu jabeen. Sidoo kale waxaan wareysanay dad goobjoog yaal ah, waxayna sheegeen inay xaaladda hadeer cakran tahay, balse uu jiro dhaqdhaqaaq kale ee dadkii oo aad u barakacay. Maxaase ka jira deegaankaasi? Warbixin ayaan idinkaga haynaa. Iyo Al-Shabaab oo gudaha u gashay dowladda Soomaalida dalkaasi Itoobiya, degmadii Khalaafana degtay. Weliba waxaan ka haynaa warar faahfaahin oo aad intaas kasii dheer oo markaasi sheegaya in iyagii ay jabeen, tuulooyinka qaarna ay ka carareen, xitaa midka ka dambeeya uu markaasi kasii socday. Haddaba maxaan ku ognahay in markaasi ururka Al-Shabaab ay galeen dowladda Soomaalida dalkaasi Itoobiya? Waa Itoobiya. maxaan ku ogaan karnaa? Haddii ay markaasi jawaabtaadu waan ogaan karnaa ay tahay, fadlan commentiga nagu soo rab. Waxaan ku ogaan karnaa haddii mar la galay tuulooyinkii iyo deegaankii, weliba degmadii, maxaan markaasi ka filan karnaa in hore loo sii socdo? Ma la isdhihi karaa ururkaasi way qabsan karaan halkaas, wayna degi karaan? Haddaba haddii ay markaasi haa tahay jawaabtaada, commentiga nagu soo rab. Waad mahadsan tahay. Kuna soo dhowow kanaalkana, subscribe saar haddii aad ku cusub tahay, muuqaalkana like saar. Like-tu waa muhiim. Mahadsanid saaxiib. Wixii warar ka soo kordha waa anigoo ah Isla Maxamed Oley. Asxaabay waxaan leeyahay subax wanaagsan. waa wixii hadda soo kordhay.